bismillahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum. kulanti habboon daawadayaal idin lahaantiinba waxaad ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee sheekadeennii takoor. qaybtan waxa ay ku bilaabmaysaa sidan. dhankaas iyo dhakhtarkii ayuu u rooray. waa kaa xafiiskiisii ugu galay. wuu hirraagayaa. waa bal fadhiiso oo waxaa jira ii sheeg. sidaasi dhakhtarkii ayaa ku tiraabay isaga oo indhaha ka biriqbiriqsiinaya. aamus oo haddana afka kala qaad isyidhi wax dheh oo aamus ugu jawaab dhakhtarkii. waa bal istaji oo biyo u doona yidhi dhakhtarkii. isna ku yidhi dhakhtarow idantii waxba kala garan mayso. waxay igu jawaabtay reerba garan maayee wiilyahow iga tag. digtoorow idanta ma xusuusta ka guurtay bal arrinkaa ii jilci. adeer wax guuray garan maayee bal waynu baadhiye inoo gee. waxay isu soo raaceen dhankii gabadha. aad buu u warwarsan yahay. waxa uu ka baqayaa in la dhaho xusuusta ka guurtay oo ninka bilaa shaqada ah dulsaar ku noqoto. uurka ayuu ka leeyahay allow adaa weynoo waaxidee ii sahal amuuraha. gabadhu ma bilaa qoysba maxay u soo raadin waayeen mise malaha magaalo kale ayay ka timi allow sahal amuuraha. waa kuwa qolkeedii soo galay. salaan ayuu dhakhtarkii ku boobay. iska warran adeer sidee tahay? waan fiicanahay ayay ugu jawaabtay. magaca ayuu kula soo booday. garan maayo ayay tidhi. qoyskiinima xasuusata ayuu ku yidhi. haddana garan maayo ayay tiri. dhakhtarkii madaxa inta uu ruxay ayuu yidhi haa waxaa qasaba in iskaan lagu mariyo si loo ogaado maskaxdaada in dhaawac soo gaadhay iyo in kale. waa laystaba galay. qol halkeera baa la galay. isna dabadda joog baa la yidhi. muraayad halkeera buu ka daawanayaa. madaxa waxbaa loo geliyey. xarko badanna waa lagu xidhay. kolba muraayad halkeera bay wax ka qorqorayaan. waxaas oo dhanna daawade ayuu ka yahay. boqoradda quruxda badan ma rabo inay wax iga gaadhaan. sidaasuu uurka ka leeyahay. mararka qaar uurka ayuu ka leeyahay allo qofka waxaan oo dhan ku dhacayaan yaa adi kaa dhiga. haddana maskaxda hadal ku soo tuurto waxa uu isdhahaa haddii aad qofkaas adigu noqoto ayadu ma noqonaysa qofka inta uu ku helo sidan oo kale kuu daryeeli lahaa. haa iyo maya intuu islahaa mid dooro ayuu dhakhtarkii soo baxay. adeer gabadhu wax badan ma qabto. jug yar baa gaadhay. maalmo nasashaa unbay u baahan tahay oo waxaa laga yaabaa in naxdintii wax gaadhsiisay. markaa istaji. sidaa markuu dhakhtarkii yidhi neef weyn baa fog ka soo tiri. hoosta ayuu wixii duco u yaqaanay ka miisaya. barakow alle jannadii firdowsa ha kaa waraabiyo. xoogaa ducooyin kalena uu ku sii kabay. boqoraddii qolkeedii baa lagu celiyey. dhankii ay ka xigtay u soo kac. aad ayuu u warwarsan yahay. hadal kari maayo. waxaad mooddaa in geeridii hooyadii loo soo sheegay. indhuhu booskoodii way ka soo baxeen. dadka dul maraya garaaca wadnihiisa way maqlayaan. isaga waxaas oo dhammi uma baxsana. maanka waxa uu ku xardhay muuqa gabadha uu calmaday. hadday xanuunsato wuu la xanuunsanayaa. hadday faraxdo wuu la farxayaa. ma yaqaano sababta. waxbaa ku leh gabadha waad jeclaatay. isaguse jacaylka laftiisa ayuu baadigoob ugu jiraa inuu helo uu ku hanwan yahay. se ma yaqaan halka uu ka helayo. shar gudban shaydaan xijaaban ayuu carabku subcinayaa. waa subcis keligii uu maqlaayo. waa kaa beertii dhakhtarka dhex maraaya. dhanka cadceedu dhaca ayuu qolkeedu ku yaallaa. aad ayuu u ordayaa. dadka dhankoodase aad ayuu u gaabinayaa. isaga ayaa ismoodsiiyey inuu ordayo. qasabaddii markasta biyaha qubaysay ayuu soo dulmaray. waa tii uu foolka ku dhaqday markii uu gabadha keenay. markasta way iska furan tahay. sanqadha biyaha ayaa isagana dhiba. maxaa loo xidhi waayey ayuu leeyahay. cid maqlaysa ayaan jirinba. afka inuu dhaqdhaqaajinayo waa la arkaa. se cidna codka ka soo baxaya maqli mayso. isagu ayaga ayuu canaan beerka u gelinayaa oo leeyahay maxay ii maqli la'yihiin. waa kaa faraha taagtaagaya. hablihii kalkaaliyayaasha ahaana inuu waashay ayay u haystaan. waa kuwa afka isa saarsaaray. wuu u jeedaa in ay wax sheegayaan laakiin isaga waxba kama gelin. waa yeelkadooda ayuu leeyahay. waa kaa qolkeedii soo galay.
warba waa ka dambeeye haddaba daawada la soco qaybta inoo xigta qaybteenan maanta sheekadan waxaa qorideeda u qalab qaatay Bahda Dhigaal intaynu tan mid lamid ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo